banayo ay hobalo hobalay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا قيمها بدنو كنا سو دواده barnaamijkeeni maxaa ka runa qaybtiisa caafimaadka waxaan uga hadli doonaa gudniinka fircooniga ah barnaamijka waxaa marti igu ah Titoresa Fatima Sahra oo kamid ah dhaqaatiirta ka howlgala magaalada caasimadda ee Muqdisho Titoresa dhaw wandhawaha Mustafa FGM ama gudniinka fircooniga FGM as caafimaad ahaan waxa loo yaqaanaa female genital cutting in lagu sameeyo qaybta xubintii taranka ee dumarka xubnaha taranka ee dumarka ah markii waxay u kala baxaan internal iyo external oo gudaha ah iyo external oo banaanka ah external waxa kamid ah xubinta FGM lagu gooyo gudniinka ee ah clitorkaas ama xubintii dareenka ee dumarka ah markii la jaro waxa imaan karto dhibaatooyin fara badan ay kamid yihiin in bleeding oo imaado dhigbax in hooyadii ay gabadhii ay dhaluwaysa in gabadhii caadadii ay dhibto iyo dhibaatooyin badan ay leedahay taas markii la jaro sida xubin walba even fingerka fartan faa'iido ay leedahay soo qofka hadii xubintiisi laga jaro dhibaato ayaa imaanayso Soomaalidana waxay caadeysatay inay sameeysato in xubintii la jaro dhanka diinta uma wanaagsana caafimaadka uma wanaagsana physical ahaan qofka uma wanaagsana in laga jaro dhibaatooyinka badan ee laga dhaxlana Mustafa waxa kamid ah in gabadhii infection oo ku dhaco xubinteeda in dhigbaxas uu sababo dhimasho